هاي حلبان داهر أمين جيسو وركيسي وركا صور عدمة دولة وحان كربنا هالمرة الضوفتي oo go'aankii baarlamaanka labada aqal ka soo gudbay oo madaxweynuhu saxiixay ee hal mar si qalad u ilduuftay oo ay tanasushay markaan hadii ay tanasusho waxa noo dhahan go'aankii daahir amiin jeeso xildhibaanka inta بعدما هذا أفرك لا تغيّر هذا البدن هل كان كمان فرنا وأنتي اللي يري كليه وحن كسو قبل لها نلا يراهدو أنا مالين يا مقعسين اللي يراهدو آذن قلير أو إلهي أنتي قف الدون كيساه إن معه وصود دري أو إلهي أوسي قل يويلل يفرض يا أولاد تربضن يا وحي إسقامين قوم ضدكي أي ضد أقول دوايين أو أي أودوغا هايين أو أي إسبايسي إن بدنا هايين يا إسقامين إسماعيل قلير آذن قلير أسكبت آذن قلير أحسن لك آذن قلير هاي والله يا عضبتي دوادنا آذن وحو عينين أول له لكن مركز حالده أي كسر ضحضه تلكستو أول سيء أول يرور آذن لو ما أنت ذات كان وادتك واحد بدن نقد حيان هرانا وحو ترسنايي هذا يرنا حاجة كلا أي تالله وحرمنا آذن لو ما أنت نود إلا قاطو هدي على ضد عضو أو مشكلة تماضو ninka ay wax ka daadanayaan oo waxaysta aadam waa adiga aadam waa nin ilaahay sida aan sheegay xoolo siiyay laakiin xeeladu ka daahday ilaahay taladii ma haleeshin dawadeedna wixii aadam waxa la yiri intii hor haba la gaaray hadda 98 neef oo geela yaa halkan taagan war aadanow labadaas neef ku darmaad aadam waa diiday haddii muddo isku haysa war maanta labadaas aan ogolaano iyo maanta ma ogolaan karno iyo war maanta labadaas haddii la diido waxa xumaana oo laga dhaxli doono yaa ka darnaa doontee maanta aan labadaas ogolaano ilaahay taladii ma haleeshin dabadeedna wixii laga digayay yaa dhacay colaadii dhacday dee awalba ninkii waxaystay wax ka daadanayeene aadan xoolihiina waa laga rogtay wiilashiina waa laga laayay dhibaatadii looga diganayana gacnuhu la galay wiilashiisa kuwa marda dawliyaha ilmuhu markii ay barwaaqada ku koraan oo xoolo iyagoo aana shaqaysan oo waalidkood iyo adeerkood iyo ehelkood u shaqeeyaan markay ku koraan ma fahmo badna mana fikir wacna kuwii markii celi waayay oo ilmihiisa ahaa oo waru kaasha la dhihi waayay hawal la joogay ninkii ilmihiisa ugu ragsanaa oo curadka ahaa oo laha war aabow naga daa war aabow maanta colaha noo qaadin yaa colaadii lagu dilay intuu sanaf bixin marka yuu ninkii dilayay yuu la dardaarmay wuxuu yidhi warniyahow intaanan naf bixin dardaarankan iga gaarsii ehelkaygii iyo dadkaygii iyo aabbahay صدح قضب إنه حمل وحنا واسمع له ولا جيستان صدح لان قضب مد إيجا جارسي ويجري أبهي وحاجة جارسيسا حوله إيوه هنتدي أديني سمعت ويلا كون نقدان أنت صابه إيجا جارسي ولكن وحاجة جارسيسا واكي بروغاد كوكراي أو نعسكها أو العلوية أو ملاه الدوبينية حاسكي هد ماله أول بوحة الله شقين يومارة يكون عارفين جريه إلكي وحا يقر أذاركي وحا يقر سيساوي أنا أذارو ما أنت هل كان الله نين كان يمكن يكسو قارسيي فرينتو مركي يكسو قارتو وحكا لما سماي كره ولا فرسان هل إيه آرو ير هل إيه آرو وحا مركا waxaan marka fursadan uga faa'iideysanayaa war labada sano yaana laga noqon labadii aadan galayr yaana naga noqon
labadii halaad oo aadan galeen u diiday ay samaanta naga noqon waliba waxaan ku darayaa taariikhan hore u leenahay laba la diido cali mahdi aan 2 sano ka diidnay cali mahdi maxamed 2 sano markii laga diidayay talaxumay ahayd magaaladan aan joognay korontaduna waa joogtay biyuhuna waa socdeen labadii sano aan diidnay waxay nagu qaadatay 30 sano 2 sano oo maanta halkaan taagan walaalayaal maanta aan talana seegin hore inoo seegtay wiilasha barwaaqada ku koray oo xoolo ay shaqaysan oo adeerada abtaashadu u shaqeeyaan oo meelaha doobinaya yaana maanta talada seejin maanta in horta laaye intaas aan ku soo gabagabeynayaa go'aankuna waa noo go'aankii daahir jeesow haddii dawladdu ka libiqsato maanta waxay maraysaa meesha la yiraahdo who blinks first ilmaha Mareykanka jooga markay isfeerayaan waa la iswaabiyaa marka waxay fiiriyaan midka koowaad muxuu ahaa hor libiqsada marka who blinks first yaa la yiraahdaa annaga yaanay maanta nagu dhicin nimankii waxa u mahayaan waa u wareereen waxay marayaan maanta yaa tolahay xilligii dagaalada sokeeye maadaama dawladdii burburtay yaa qabaa'ilaadka waxaa la dhihi jiray reer hebel waxaa tihiin aag koowaad reer hebel waxaa tihiin aag labaad reer hebelna aag saddexaad midii oo kalaa maanta taagan hebelow adigu guur maranaayo deg hebelow adigu guur warshadda baasada deg warxasa khayrawa adigu guur dayniila deg runta aan isku sheegno waa sidii cabdullaahi sheekh xasan oo sheegay wallaahi maranaayo haddii lagu nabad galo oo dadkii eedda laga galay looga nabad galo yaa nasiib la leeyahay ragguna raggii maaha xasan khayrow maxamed khayre ma tihid ma dagaalami kartid ooda waayow sigana ma tihid ma dagaalami kartid xasan shiikhow ma tihid xuseen xaaji bood iyo raggii raghay ma tihid idinku waliba waxaa dheertihiin eeda maar idin taala waa eedaysantihiin waddankan waxaa idin taalla magac xun waxaa idin yaalla sidii axmed fiqo ou sheegay niman ayaxa oo gaajaysan oo dalkii diirtay oo isbitaalladii gatay oo mushaarkii ciidamada gatay oo muxuu ahaa garoomadii lagu ciyaarayo gatay taariikhdaasaa idin taalla wallaahi qaf idin soo baxay inuusan jirin waxaan ku soo gabagabeynayaa wartalow labadii halaad oo aadan gallayr maanta yaanay naga noqon waa mahadsantihiin